سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد dhammaan maamulka galmudug qaybihiisa kala gedisan taliska booliska ee degmada Gurceel odayaasha dhaqanka beesha ugaaska uu yahay nabadoon caruuf xildhibaanada dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaam bacdi runtii galabtay waxaan meeshan isugu nimid kiis ka dhacay degmada Gurceel oo runtii aan aad uga xumaanay bulshadana aan rabno inaan dareenkeeda la wadaagno kiiskaas oo ah runtii kiis foolxun kuna dhacay gabar yar oo dhalinyaro ah ayna geysteen wiilal yar oo lagu soo eedeeyay dambigaas inay iyagu leeyihiin lagu soo eedeeyay arrintiisa ayaan galabtay meeshan isugu nimid raggaas gacanta ayaa lagu soo dhigay waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada amniga waa eedeysanayaal waa 4 dhalinyaro ah aabihii dhalay gabadha goobajoog ayuu yahay wuxuu ku qancay qabashada ciidamada amnigu ay gacanta ku soo dhigeen insha Allah tacaala waana maxkamad sugayaal maxkamadda ayaana ku wareejinaynaa haddii Allah awood leh ogolaado bulshada ama bahda waxbarata dhammaantood dareenkaas runtii foolxun oo ku dhacay gabadhaas yarta ah waan uga tacsiyeenaynaa waana ka xunnahay insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa inuusan kiis dambe oo noocaas oo kale ah uusan deegaanka ka dhicin haddii Allah awood leh ogolaado dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay waxyaalaha xunka la iska daayo bulshada reer Gurceel dhammaantood runtii arrintaasi waa arrin foolxun arrin hore u dhici jirta ma ahan waa arrin deegaankanaga runtii ku cusub waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala raggan dhalinyarada oo hadda lagu soo eedeeyana waxa la wixii shariicada islaamku ku xukunto in lagu fulin doono haddii Ilaahay yiraahdo kuwa kalena ay iyaguna ku waaqsan doonaan ay arrintaas runtii ka qowmeey doonaan ayaan rajaynaynaa waxaan leenahay dhalinyarada wax baranaysa waxaad wax u baranaysiin waa bulshadiinii waxa maxay ahayto rabo inaad wax u qabatiin waa dadkiinii ka waanto waxyaalaha xun waxyaalaha wanaagsan u dhaqaaqa ayaan leenahay qof wax xun loogama daydo laakiin wax fiican waa looga daydaa falkaasi waa fal foon xun waxaan leenahay intii maqashayna ka leexato intii aragtayna ka leexato waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala maxkamadda degmada Gurceel wixii shariicada islaamka ay ku kala helaan eheladii gabadhaas ka dhalatay iyo eedeysanayaalkaas waxay ku kala helaan ayay kala yeelan doonaan haddii Allah awood leh ogolaado warka propagandada ah ama maxay ahayto social media la soo dhigayana hal la joojiyo ayaan leenahay dadka arrintaani kullayba waxaa lagu kala bixi doonaa heer maxkamadeed ayaa lagu kala bixi doonaa wax in ba la ekaatee kiiskaas ka dhimanina ma jiraan raggii eedeysanayaalka way joogaan eheladii gabadhana way joogaan maamulkii qaybihiisii kala duwanaayna way joogaan waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala maxkamad loo dhan yahay qolo walba ay ku qanacsan tahay wax warahoo dambana aysan ka imaan doonin inay ka dhici doonto haddii Ilaahay yiraahdo mar dhow waliba maxkamadda waan u dadajin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo xildhibaankii gabadha wuu joogaa nabadoonkii wuu joogaa aabaheed wuu joogaa wayna ku qanacsan yihiin haddii Ilaahay yiraahdo maxkamadda wax ama geed la isku aadi doonana ma ahan dhammaan bulshaweynta reer Gurceelna waxaan aan u ballan qaadaynaa inay si cadaalad oo xornimo ah maxkamaddaas ku dhici doonto haddii Ilaahay yiraahdo iyo bulshaweynta Soomaaliyeed dhammaantood waan u ballan qaadaynaa inay si cadaalad arrintaas ku dhici doonto bahda saxafiyiintana aad ayaan ugu mahad celinaynaa dhammaan intii ka soo qayb gashay arrintan way ku mahadsan yihiin waxaan rajay doonaa si dhow maxkamadda in loo qaadi doono aad ayaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabillahi tawfiiq